qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga UCID ayaa maanta xaflad soo dhaweyn ah u sameeyay urur haween oo dhawaan ku soo biiray iyo waliba dhalinyaro munaasabadaasi oo ka dhacday magaalada Abdaal ayaa waxa ka soo qayb galay xogayaha guud ee xisbiga UCID xogayaha warfaafinta ee xisbiga UCID xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka isla xisbigaasi xildhibaano iyo waliba mas'uuliyiinta ururkaasi ku soo biiray waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Zainab Libaax oo ku hadlaysay afka ururkaasi ku soo biiray xisbiga UCID waxaana kamid ahaa hadaladeedii sidan الله مريا عالمي oo laga sheekayn karin imaka waxa lagu jiraa sidii waxa la yidhi wax la qaban lahaa haba la kala furfuro maqshir iyo maqrib sida xawaayadan lagu kala tuuro ayaaba naloo taagan saacad xisbiga inaanu raacin waxna la qabtaan doona xisbiga baylaha iyadu way badantay ta magaalada way badantay haday garan waa tahay haday beeraha waxba looma qabto danta guud lagama shaqeeyo maxay tahay wadooyin lagama shaqeeyo meydka iyagu isagoo maalmo oo laada mooyaane waxaan ku imaka wixii ka dambeeya hadaan loo soo gurmen laba la saarayo baan ku dagabna guriga lama dhaxmarnay waxaan anigu jecel kulay xubnaha iyaga yimi inay hadlaan waxaan nala socdaa xubnihii heer qaran waxaan nala socdaa xogayihii baan nala socdaa xisbiga heer qaran xogayaal kala nala socda gudoomiyihii garabka haweenka heer qaran baan nala socda waxaan nala socda gudoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga waxa la yiri maanta yaan loo kala harin Abdaal ha loo tago hal tuso qiimaha ay ku leeyihiin maadaama oo iyagu ay maanta garteen in ay dantoodu tahay in xisbiga u taageeraan oo markii horena la doonayay in ay u cid ka muuqato markaan runta isku sheegno gobolka saaxil gobolada kale hadii aanay saaxil ka muuqan aanay u cid wax jira ahayn because musharaxu uu ka soo jeedo saaxil waxa aan idin leenahay soo dhawaada waana idinku faraxsan halkan dheer oo nafi maalba ku baxday oo muxuu dhiig iyo wax walba loo horay halkan ka soo bilownay iyo halkan maanta marna inta waan ognahay wadankana xil baa inaga wada saaran marka guud ahaan waxa inaga wada saaran xilku waxa weeyaan inaynu wixii midnimada ummadda iyo wada jirka ummadda iyo muxuu horumarka ummadda laga shaqeeyo UCIDna kaasu taagay waxaan ku masaalayaa maanta inay ka tageen diyaarad duulaysay oo dabeedna ku duulaysay safarkay ku burburaysay ilaahay baa idinka reebay waad ogtihiin markaa ka degteen xisbigii kulmiye burburay nasiib baa leedihiin haddii maanta ka soo degteen oo xisbigii daryeelkii iyo cadaaladda ilaahay idinku soo reebay annaguna waa idin soo dhawaynaynaa waa idin qiimaynaynaa waa idin weynaynaynaa taasi waxay ka muuqataa 120 kiiloomitir ee madaxda xisbigu aanay u kala harin ee aan u soo dheemaalay ee aanan xitaa saaxil ku hadlayn iyo roodaan isniri aan ka socdo dhibaatadii qabsatay maalintii dhaweyd warkii inanka Cabdiraxmaan la yiraahdo ka qaaday iyo Mubaarak warkii waxa loo joojiyay askar oo loo dhigay haleeya aw barxadla askar la dhigay waxa la damcayn inaan ku intuu halka ka soo lugayo Hargeysa igu keenay haddana habeennimadkii diin qalbu ka lugayo lugbu ku keenay Hargeysa cajalada haddana waxa dhacday iyadoo taas ay dhacday habeenkii markii kamaradu soo gaadhay gabagabadiina waxa xafladaasi soo afmeeray xildhibaan Saleebaan Cali Qayre oo ah xildhibaanadii ka soo baxay golaha deegaanka ee degmada Berbera ee xisbiga UCID isaga oo taageerana u fidiyay musharaxnimada Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ee xisbiga kulmiye waxaana kamid ahaa hadaladiisii sidan maanta waxaan oranayaa waa taageeradii oo laba kacdaysay laabno codkeennii markii horeba aynu ku soo saarno xisbiga imikana aynu ku soo saarno musharaxa madaxweynaha ma wanaagsana taasi awaala'aan waad noqonaysaa musabixi waxaa la ogyahay inaad la gashay heshiis hore uu jiro aad la gashay awaala'aan waan noqonay heshiiskii fuli مسؤوليته سلسلة كوركسن كهذا لست بيريها عبد الرحمن محمد عقة تي في عالمي رويال مقالة بربرة